markaasaa yacquub indhihiisii kor u taagay oo wax fiiriyey wuxuuna arkay Ciisaa oo soo socda oo 400 oo nin wata kolkaasuu carruurtii u qaybiyey Leah iyo Raaxeel iyo labadii addoon markaasuu addoommihii iyo carruurtoodii ugu hormariyey Leah iyo carruurteediina wuu ku xigsiiyey Raaxeel iyo Yuusufna wuxuu ugu dambaysiiyey isla markaasuu ka hor gudbay 7 goor wuuna sujuuday intuusan walaalkiis u soo dhowaan Ciisawna wuu ku soo orday inuu ka hortago isaga wuuna isku duubay oo qoortiisuu dhab yiri wuuna dhunkaday wayna ooyeen markaasuu Ciisaw indhihiisii kor u taagay oo wuxuu arkay dumarkii iyo carruurtii oo wuxuu ku yidhi waa iyo kuwan kula socdaa isna wuxuu yidhi waa carruurtii Ilaah intuu ii roonaaday isiiyey anoo ah addoonkaaga dabadeedna addoommihii iyo carruurtoodii ayaa u soo dhowaaday wayna wada sujuudeen Leah iyo carruurteediina way u soo dhowaadeen wayna wada sujuudeen dabadeedna waxaa u soo dhowaaday Yuusuf iyo Raaxeel wayna u sujuudeen markaasuu yidhi maxaad ula jeeddaa kooxahan iga hor yimid oo dhan isna wuxuu yidhi inaad raalli iga noqotid sayidkaygiyow Ciisawna wuxuu yidhi walaalkayow wax igu filan baan haystaa ee iska hayso waxaaga Yacquubna wuxuu yidhi maya waan ku baryayaa haddii aad haatan raalli iga tahay ee hadiyadayda gacantayda ka guddoon waayo wejigaaga waxaan u arkay sidii wejigii Ilaah loo arko oo aadna waad igu faraxday waan ku baryayaa guddoon hadiyadayda lagu keenay maxaa yeelay Ilaah baa ii roonaaday oo haddana wax igu filan baan haystaa aad buuna u baryey kolkaasuu guddoomay oo wuxuu yidhi socdaalkeenna aan iska sii soconno oo inakeena oo adna waan kaa hormarayaa markaasuu ku yidhi isagii sayidkaygiiyow waad i og tahay in carruurtu ay tabar daran yihiin adhiga iyo lo'duna waa la nuugaa oo haddii maalin keliya aad loo sii kaxayo dee adhigu waa wada dhimanayaa sayidkaygiiyow waan ku baryayaaye iga hormar anigoo addoonkaaga ah oo adna aayar baan soo kaxayn anoo fiirinaya tallaabada xoolaha iyo hor joogaya tallaabada carruurta ilaa aan saciir kugu imaado sayidkaygiiyow markaasaa Ciisaw ku yidhi haddaba aan dadka ila jira qaar kaaga tago isna wuxuu yidhi maxaa looga baahan yahay raalligow sayidkaygow oo maalintaasaa Ciisaw ku noqday jidkiisii ilaa saciir Yacquubna wuxuu u socdaalay Sukot wuxuuna ka dhistay guri xoolihiisiina wuxuu u sameeyey xerooyin sidaas daraaddeed meeshaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa Sukot Yacquubna nabad buu ku yimid magaaladii Shekem ee ku taal dalka Kancaan markuu ka yimid Baadan Araam oo wuxuu degay magaalada horteeda degadii uu teendhadiisii ka dhistayna wuxuu ka iibsaday reer Xamoor oo ahaa Shekem aabbihiis oo wuxuu siistay 100 xabadood oo lacag ah halkaasna wuxuu ka taagay meel alla bari wuxuuna u bixiyey El Elohe Israa'iil